بسم الله السلام الله soo dhawaada asxaabta qaaliga ah waa Xaydar dabcan waxaan rajaynayaa in isbuucii hadda dhaafay uu ahaa isbuuc aad u wanaagsan dabcan lacaga badan oo aan idinla soo wadaagayna ay wada dhaqaaqeen maasha Allah qaarkood waad ka faa'iidaysteen dabcan isbuucii hadda wuxuu ahaa isbuuc aad u qurux badan volatility suuqa u badnaa dabcan lacaga badan ay jahaysteen dabcan qaabkii aan u sheegnayna ay u dhacday dabcan haddii aan dabcan aan ku laabto ama aan review ku sameeyo caawa dabcan saan hore u sameyn jirnay maxaa la dhahaa falanqaynteedii toddobaadka yacni isbuuc waliba waxaan la wadaagaa yacni 6 lacagood 6da aan la wadaagayo yacni waa 6da anigu fursadaha ka raadinayo dabcan waxaan jeclahay dabcan inaad idinkuna ka faa'iidaystaan waa lacaga aan soo xushay dabcan oo aan muddo badan aan eeganayo wey dabcan aan isleeyahay dabcan yani cilmi ahaanteyda ama khibrad ahaanteyda lacagahaasi way dhaqaaqi karayaan dabcan maasha Allah lacaga badan baa dhaqaaqay isbuucan dabcan qaabkii aan u dhignayna bay u dhaqaaqeen dabcan taas horta ilaahay baa mahad iska leh dabcan waan u jeeday dhalinyaro badan oo lacagihii isbuucan yani aan soo dhigay ka faa'iidaystay dabcan oo qaarkood challenge ay u gudbeen qaarkood ay profit la taaban kara ka sameeyeen dabcan private ay la wadaagayeen maasha Allah waan ku faraxsanahay isbuucan buu ahaa laba isbuuc oo hore waan maqnaa oo dabcan hawlo ay u yimi laakiin isbuucii hadda falanqayn baan soo dhigay dabcan lacagihiina insha Allah review waan ku sameynaynaa hadda aniga oo tix raacaya dabcan video ka horeeya jiray oo ah mutaafka iyo weliba maxaa la trade viewga xiriirka dhexeeya dabcan oo arday badan ay soo weydiiyeen dabcan wixii aan ka aqaanay ama aan mataqaanaa aan ka fahansanana dabcan aan videoga ku sheegay dabcan haddii aan waqtiga yar awgiis ma rabo inaan dheereeyo inaan ka dheereeyo wax dhaho 9 minute ama 8 minute wax ka badan inaan ka dheereeyo ma rabo laakiin insha Allah waxaan guda gelaynaa videoga jaartiga la cafan si aan dabcan qaabkii ay lacagahaasi ahaayeen iyo qaabkii u dhaqaaqeen inaan khibrad yacni aan ka qaadan dabcan haddaan u gudbo lacagta la dhaho DXY dabcan طبعا DXY waatan dabcan qaabkii aan niri bay u dhaqaaqday dabcan lacagta DXY da haddaan idin sheego dabcan meeshaan ka sugeynay ama video dib ugu laabto si aan u ogaano isbuucan meeshuu furmay lacagtaasi meeshii ka furantay dabcan qaabkii u dhaqaaqday iyo waxyaalihii ay samaysay dabcan si aan dib ugu tixraacno okay aan tagno videoga janalka ku jira dabcan si aan ogaano qaabkan u falanqaynay qaabkan forecastinga ugu sameynay qaabkan jihada ugu dirnay bal inay aqbashay ama inaysan aqbalin dabcan because waxaan jihada ugu dirin waxaan adeegsanaynaa xawii yani rules baan adeegsanaynaa iyo weliba maxaa la dhahaa cilmi baan adeegsanaynaa ma aha waxyaalo aan iskaga darin dabcan okay aan eegno dabcan waatan lacagta DXY inkastoo lacagta DXY la rajaynayo inay halkan timaado dabcan inay meeshan timaado kadibna meeshaas laga retest gareeyo insha Allah caadi ahaan feature insha Allah videogan haddii aan data frame kan soo structure code waatan dabcan qaabkaas waaye halka inay timaado insha Allah qaybtan videoga waxaan ku soo doonaa xaqo dabcan yani jartiga ama waxa la overall direction guud ee suuqa yani analysis aan sameeyay iyo qaabka aan sugayo in feature inay noqon doonaan dabcan iyadana waa inta qaybta dambe videoga kadibna halka laga celiyo ay ka samayso wax laba taabasho plus double hoose dabcan structure aad u qurux badan inkastoo structure kan ay ku jirto uu yahay structure iyadana descend waadixa dabcan galno chartigadan sii dhex galno giniya meesha muhiimadda ah dabcan qaabkaas ay ahayd lacagtu markay furmaysay maxaan iri dabcan laba midkood dhageyso waxaan iri ay samaysay laba taabashay samaysay double topkii koray tagtay qaab impulsive ku tagtay laba midkood ay noqon karaysaa inay impulsive-ka ay all the way up siyaado correction ay sii samayso ay lacagtaasi jiha bedelato ama in ay lacagtani samayso wax dhaho ay correction bilowdo dabcan correction qaab noocan ay bilowdo kadibna lagu soo kala celinayo insha Allah labadaasi ahayd dabcan haddii aan dib ugu laabto jaar dabcan qaabkee ahayd lacagtani awalka hore qaabkan ahayd qaabkan ahayd xaggee saaraa trailingku halkan saarna dabcan tablet ku sameeyay maxaan ka soo yaxdo in ay lacagtan ay sii socoto continuation ka socoto dabcan qaabkii bartan ku tagtaan sugayay data waxa la 1 hour time frame ka maxaa dhacay
lacagtii inay samayso wax la dhaho dabcan nine ruleka xaggan ay ahayd in nine rulekii qaab correction ay samaysay waxay samaysay qaabkii aan sheegay inay samaysay oo ah inay lacagtii dhaqaaqday dabcan dhaqaaq samaysay correction gashay dabcan kadibna all the way sii dhaqaaq maxaa kuwa caddaaday in suuqa jihadiisii bedel maxaan ka sugeynay in lacagta correctionka ay samaysay dabcan correction sii wadato kadibna all the way kusoo kala warto jihada salka kusoo aado dabcan annaguna aan uga faa'iidaysano maxaa dhacay wixii aan sheegaynay waa dhacay dabcan maxaa samaynaysaa markaasoo kale update ku samaynaysaa trade bahalkeeda waxaa kuu caddaanaysa lacagtani dabcan in ay jiha bedelatay dabcan okay maxaa laga sugayaa in future inay halkaas tagto dabcan lacagtani all the way qaab correction ku tagto kadibna all the way bartaas qaabkii ku tagto la ogaado haddii correction ku tagto means ay soo kala wareegto jihada salka lagu soo diro labadaada shughul ay samayso dabcan waadax sidoo kale halkan maxaa uga jeedaa sidoo kale structure ahaan halkan sidoo kale maxaa uga jeedaa waxaad uga jeedaa hal qaab correction ah waxaa laga yaabaa inay correction soo dheeraysato ay timaado meeshan kadibna all the way iyadana waan ka hadli doonaa insha allah asbuuca soo socda lacagtan qaabkaasaan uga faa'iidaysan waayey dabcan jiha silaan ka sugayay maxaa dhacay all the way inay dabcan qaabkii maaha aan u rabay maaha qaab kale u dhaqaaqo dabcan sidoo kale waxaa kaloo lamid ahaa lacagta euro USD ay dhacan iyadana waa geeni maxaan ka sugayay lacagtan iyadana way soo dhici karaysaa xoogaa way soo dhici karaysaa waxay iman karaysaa halkan sii aado waa inay halkan qaab correction ay timaado kadibna all the way ay jihada up sii aado way soo dhici karaysaa xoogaa way soo dhici karaysaa waxay iman karaysaa halkan qaabkaasay samaysay hadda ay soo dhacday oo ay qaab isku soo dhacday dabcan iyadana waxaa ii sheegaya dabcan structureka dambe qaab structure-kan oo kale bay retest gareyn iyadana hadda dib iyadana waa tan dabcan meeshii bay ka soo dhaqaaqday impulsive xaggii timi meeshii aan rabay dabcan qaab impulsive inay ku timid all the way way sii daysay dabcan iyadana waa lacag sababta keenaysana horaan kugu sheegay dabcan oo video ku sheegay waxay noqonaysaa in correction ninety rupees inuu jiro qaab impulsive bay ku buuxsatay means waxaa laga yaabaa in lacagtan iyadana ay soo kala wareegto dabcan video ku xiga insha allah falanqaynta insha allah ku sheegi doonaa haddaan gudbo lacagta xigta dabcan lacagta xigta waa AUDUSD AUDUSD means waxay sim la tahay EURUSD iyadana wax intriga kama qaadan isbuucan dabcan waxaan ka sugayay halkan waxay saarnaa wax la dhaho expanding by saarnaa maxaan ka sugayay lacagtan in ay all the way halkan qaab correction ku timaado maxaa dhacay impulsive ku tiri freelankii haddana all the way waxaa ii sawir matay markii impulsive ka jabisay in lacagtan ay sii dayso laakiin wax intriga kama aanan qaadan oo yani structure guud ah wuxuu yahay structure expanding of side for dabcan iyadana dabcan waa sidaas sababta loo qaadanayo okay haddaan gudbo lacagta ku xigta iyadana dabcan lacagta way lacagta ku xigta SDC jab iyadana wax dhaqaaqa maysan muslim dabcan lacagtan iyadana maxaa dhacay halkan ka falanqeynay correction weyn bay ku jirtaa dabcan waxaa la sugayaa double marka hoose inay dhamaysto kadibna all the way lacagtan jihada absiyaad iyadana qaab noocaasaan falanqeynay dabcan iyadana qaab noocaas oo dhacday okay aanu gudbo lacagta ku xigta waa ZHFJPY dabcan lacagtani waxay ahayd lacagtii isbuuca dabcan maasha allah dad badan baa ka faa'iidaystay dad baa xitaa challenge ku dhaafay dabcan lacagtaa keliya ay galeen dabcan saa'id bay u qurux badnayd dabcan qaabkii aan u falanqeynay noqotay haddaan falanqeynta dib ugu laabto dabcan lacagtan caadi ahaantoo kale maxaa meeshan ka dhacay qaab correction ay samaysay natural correctionkaaga tegey structurekan wuu isbuuxiyey already means structurekan meesha uu ka baxay oo waxaa samaysmay another structure structureka goormuu dhamaystirmaya means waa inuu sameeyo wax laho another structureka kadibna all the way lacagta jihada silka lagu soo dirayo maxaa dhacay meeshii aan ka falanqeynay oo meeshan maxaa dhacay xaggan ay marisay lacagtani maxaa dhacay structure ka samaysmay saddex taabasho waadaxayna samaysay all the way soo dhacday lagi dabana ka qaatay dabcan all the way 9% ay ku xiray dabcan ay targetkii tagtay oo maxay 9.69% oo fida dabcan lacag aad u qurux badan wax waa liya gelin because waxaan yani aan isbuucyadii ka horreeyay oo dhan baan lacagtan la soo soconay dabcan oo aan xitaa halkan waxaa laga yaabaa inaan isbuucii hadda dhaweyd aan meeshan ka sugeynay dabcan qaab correction inay ku tagto dabcan dhaqaaq xoogana laga sugayay sida lacagta NZDC hajafida hadda laga sugayay dabcan
iyadana si aad u qurux badan bay dhaqaaqday dad badan baa u jeeday dabcan oo yacni kaga gudbay waxa loo maxaa la dhahaa koomo company ay leeyihiin maasha allah saaid baa ugu faraxsanahay inaad ka gudubtaan insha allah saaid yacni saasna caawintana waa wadaya insha allah si dad badan oo yacni cilmigan u baahan ay uga faa'iidaystaan dabcan haddaan u gudbo lacagta kale ku xigta iyadana lacag kale way dhaqaaqday way jirtaa oo usbuucan iyadana dhaqaaq muujisay lacagta kale oo iyadana dhaqaaqa muujisay waxay ahayd AUD CHF AUD JPY baan leeyahay iyadana dabcan intii aad u macaan oo hadda waxay ordaysaa ilaa adiga 4% ordaysa dabcan iyadana lacag badan bay ahayd targetkii waa halkan iyadana dabcan waan qaatay oo waan ka faa'iidaystay dad badanna oo ka faa'iidaystay way jiraan dad laaga dambe ka galayna way jiraan iyadana maasha allah saaid bay u qurux badnayd waayo lacagahan waxay ahaayeen lacagihii aan kula talinayay inaad qaadataan dabcan xitaa telegramkayga inaan kusoo shirgira u badanaya timekii aan qaatay haddaan telegramka balan eego waatan DXY waatan dabcan iyadoo aan kusoo sameeyo update dabcan xitaa qoraal aan soo raaciyay dabcan qoraalkii iyadana hoos aan kusoo qoray dabcan halkaa inay correction ku tagta kasugay balance bay ku tagtay dabcan waata AUD CHF iyadana baaska markay dhaqaaqday oo qaatay iyadana waa soo dhigay oo dabcan telegramkan soo dhigay sidoo kale CHF JPY iyadana CHF JPY waa soo dhigay dabcan markaan qaatay maasha allah lacaga aad u qurux badan bay ahaayeen dhammaantood aan idinkula talinaya inaad qaadataan insha allah waa ka faa'iidaysateen waxaan rajeynayaa insha allah isbuucyada soo socda qaabkaas insha allah aan usoo dhigi doono si aad uga faa'iidaysataan oo dad badan oo yacni u baahan ay u helaan USD iyadana lacag ay ku jirtay lacagaha laakiin iyadana wax entry ama ka qaadan lacagtan waayo haddaan dib ugu laabto sababta keenta waxa weeye halkan markas wax loo in structure noocan oo ka samaysmo kadibna halkan ay timaado kadibna all the way sii dayso maxaa dhacay baas baa lagu yimi xagee la tegay inaan joogo laakiin brobalkii bay tagtay iyadana lacag qudux badan bay ahayd aad baad u mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah waa inoo iyo isbuucayga insha allah waxaa laga yaabaa video kale oo baad muhiim in jira kusoo dhashay insha allah iyadana la socdo wixii aad u baahan tihiin insha allah xagga telegramka igu soo qora insha allah markii aan waqti u helo baan insha allah idinka soo jawaabi doonaa insha allah aad baad u mahadsantihiin